wafti ka socda gudida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo uu hogaaminayo Jaamac Xaaji Axmed oo ah gudoomiyaha gudidani ayaa socdaal ay ku dardargelinayeen hawlaha xisbiga kulmiye ugu baxay deegaamada bariga gobolka Togdheer. Deegaanada ay wafdidani gaadheen oo kala ay Yurowe, Beer, Inadhakool, Unuunley iyo Inaaf Madoobe ayaa dadka deegaanadaasi degan ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen wafdidani. Bulshada deegaanada wafdidani gaadheen ayaa si cad u sheegay inay taageero buuxda u hayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. xisbiga wax qabadka ee kulmiye codka ma siilaysaan taageerada kulmiye ma siilaysaan dadana hayrawo cid kale codsiin mayn dadka waxa ka dhab ah taageerada kulmiye reer Yurowe way ka go'an tahay in ay maaragtay maanta ududooda iyo codkoodaba siiyaan xisbiga kulmiye musharaxa Muuse Biixi Cabdi dadweynaha Beer ku nool ee codkoodu ay ogeydeen tiradu ahaa dhammaan inay wada yihiin kulmiye oo aan been iyo riyo midna lagu hamiinayn dhammaan kulmiyana ama beenba kulmiyaanu nahay runtii marka laga deegaanka Beer waa kulmiye haddaan nahay deegaanka Beereed waxaan nahay kulmiye waxaan taageerada siinayna Muuse Biixi Cabdi Soomaha waxaanu runtii qaadanay taladii madaxweynaheennii halyeygii dalka iyo diinta iyo ummadda uu soo halgamay Axmed Maxamed Maxamuud Silaaliyo xanoolaado ballan qaadnay inaan u codayno Muuse Biixi Cabdi inaan codka siino isaga iyo xisbigiisaba waanu ballan qaadnay ballanqaadkii ka bixi mayno 500 qof waxaan doonaynaa insha Allah tacaala xisbiga u codayno kulmiye mujaahid Muuse Biixi Cabdi ma igu raacsantihiin dhalinyaro ay dadka dhamaw tuulada Inaaf Madoobe halkan waxa ah xafiisyo badan way in badan weeye taageerayaasha xisbiga kulmiye boqolkiiba 80 way gaadhayaan dhammaan sidaas loo tuban yahay leedinku soo dhaweynaya leedinka sugaya xafiisyada dhan gudoomiyaha gudida kaambeynka xisbiga kulmiye Jaamac Xaaji Axmed Xildhibaan Nuux Maxamed Xuseen Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo xubno kale oo kamid ah gudida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna bulshada deegaanada ay gaadheen uga mahadnaqay sida taageerada ay ugu hayaan xisbiga kulmiye. magaalada Beereed waa kulmiye waa la og yahay xisbiga kulmiye waxa tiin dadka aasaasay cududii xisbigu ku guuleystay 2010 deegaanada ay ka soo baxday baatihiin cududiina xisbigu filayaa deegaanada la isku haleynaya baatihiin xisbigu wuu ku xisaabtamayaa horumarka iyo runtii himilooyinka uu higsanayana kamid baatihiin ninka xamar jooga xamaran online ninka la saaxiibka iyo ninka dalka u soo halgamay ee mujaahidka garaysan musharaxiina Muuse Biixi Cabdi oo mujaahida labadan limeen islaamsan karnaa إلى المجاهد Muuse Biixi Cabdi musharaxiina dooranay madaxweyne ka dhigna Soomaaliya waxay slogan Yurowe inay Muuse Biixi dooranay Seylaci farmaajo wuxuu ku faanayay inuu xisbiga mucaaradka dalka Soomaaliland ugu weyn uu maal galiyo war markaasaynu codkeena siinaa war man ninka xisbiga wadani habeen saddexaad waxa looga dabaaldegayay Muqdisho war ma xisbigaasaynu codkeena iyo himiladayna aynu ku aaminaayo mustaqbalkeena ballankeenu waxa weeye inaynu mujaahid Muuse Biixi Cabdi aynu kursiga dalka ugu sareeyo saarno insha Allah tacaala soo sida ma walaalayaal la weerari reer Beereed waxa loo tala saaranayaa xisbinimada ay haayeen laakiin xisbiga kulmiye wuxuu target ka saarayaa Beer Xaaji Saalax Duruqsi iyo magaalooyinka Maxamed Jookar warbaahinta Ariel TV Burco.